marka ugu horreysa allah mahadle allihii Soomaali naga dhigay allihii muslim naga dhigay allihii na siiyay technology-gan meel kasta aan wax ku gaarsiin karno allahaasaa mahadle markayga xigana maanta waxa meeshan soo fadhiisiyay inaan laba qodob ka hadlo mid waa saylici oo labadii August 2020 ka hadlay Hargeysa ururka dhalinyarada kulmiye midna waa commissionka saylici waxaad noo sheegtay inaanu dastuurku ku ogolayn inaad wax badan ka hadasho oo marka madaxweynuhu meesha uu ka maqan yahay un aad awoodda leedahay shalayna waxaad ka hadashay doorashada in doorashada la qaban doono taasina waxaan u aragnaa inaad tahay nin la soo dirsaday oo dadkiisa laga hor keenayo oon isogay marka haddaba inaad eegto waxa noo fiican dastuurka qabiilka ah waxa aad ku leedahay haddii mar dambe waxaana shaqadaada ahayn adoo halkaa ka hadlaya aan aragnana waxaanu u haysanaa nin dadkiisii laga horgeynayo yaanu ku aragnay waxaanan kugula dardaarmayaa nimanka taliyayaasha ku ah inaad beddesho nimanka kula taliya inaad beddesho taasi waa taa halkanna waxaan uga dirayaa fariin nimanka commissionka oo 29 sano ee waxa Somaliland dhisnay annagu waxaan nahay dadkii dhulka deganaa ee indigenous ku ahaa in Ethiopia aqoonin dhulkayaga wax horumari ma soo gaaro dhulkayaga wax dawladii ma soo gaaro wax macluumaad meel laga codeeyaa ma soo gaadho goobaha iyagu way xidhan yihiin oo 6 goobood oo Hargeysa agteeda ah ayaa naga xidhan oo gobolka Awdal ka tirsan oo la rabo in lagu register gareeyo dadka xarshin laga soo keenay oo xuduudda laga soo tallaabiyo ee marka doorashada aan lagu soo guro baabuur marka ilaa 6 goobood xidhan yihiin Hargeysa magaalo madaxda korkeeda ah doorashada la qabanayo aqli daraan u haysanaa dad aqli daran oo aan waxba kala ogeyn ayaan u haysanaa marka haddaba ilaa 6 goobood la furo mooyaane oo dadkayga educate gareyno oo nu sheegno waxay doorashadu tahay oo nu sheegno dhulka police stationada la dhigayo wax doorasho alla qaban maayo inagana yeeli mayno dad wax bartaan u nahay qalniya buuga waanu naqaanaa mid labaadna halkan maanta waan ka cadeynayaa cidii dastuurka Soomaaliya ee 1960 ku ogolaatay inaad dhulkan ka shaqeyso timaado maanta aad leedahay waan goosanayaa cidii jabisay waa SNM cidii dastuurka qabiilka qoratay waa SNM inuu dastuur qabiil yahayna waxa ku cadeynaya ninka Boosaaso degan iyo ninka Laas Qoray degan waa laba nin oo harti oo walaala ah ciidan baad hor dhigteen ka Boosaaso degan waxaad ku tilmaamteen Soomaali ka Laas Qoray deganna waxaad ku tilmaamteen Somaliland idinkana ka haw degan madax buu ka noqday Faysal Cali Waraabo waa ka madaxweynaha isku sharaxaya musabixii reerkiisii sidoo u dhanaana waa ka xarshin ka soo raree madaxweynaha ah
marka taasi miyayna ahayn dastuur qabiil marka dastuurka qabiilkeed wadaanna inaga yeeli mayno inaga yeeli mayno inaga yeeli mayno inaga yeeli mayno doorashana inaga yeeli mayno ilaa wax laga bedelo oon dadkayga educate garayno halkanna waxaan kaga faa'iidaysanayaa ninka dhulka degan in Itoobiya degin wada waa lagu yimaadaayo waxbaa lagu noqdaa madaxweynaha lagu noqdaa wasiir baa lagu noqdaa tagaskaaga la cunaa isaguna tagaskiisa xabashi buu siiyaa oo Addis Ababa ku xirootaa dhulkiisana markaad galayso dee baasaboor baa lagu weydiiyaa marka waxaan garan lahayaa ninka dhulkiisa baasaboor lagu weydiinayo aanad waxba ka noqon karin sidoo dhulkan wax uga noqon karaa baladu su'aasha is weydii sidoo doorasho u qabsan karaa baladu su'aasha is weydii marka ha ka yeelina wax barta ha ka yeelina waan salaamaya